kulanti waxana wanaagsan ilahantiin badaawadayal halkani waa Somali TV oo hadahan oo kale aad hawada ku kulantaan toddobaadkana barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa munaasabad lagu maamuusay sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ururka daldoonka Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Isku Roon oo ah urur ka jira gobolka Minnesota oo ay aasaaseen dad Soomaaliyeed oo u gurmanaya dadka Soomaaliyeed ee ubad raadiska ah munaasabadan waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota dadkii munaasabada ka hadlay waxaa kamid ah Sheekh Sacad oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ilaahay baa dadka abuuray oo markii ugu horeysay ilaahay idmay inuu khaliif ardadiisa dhulkiisa u sameeyo oo malaa'iktu ku tiri war nid istilayo oo istiri doonaha ka dhigin oo yiri inni calamu ma la ta'lamun ee ilaahay aadan abuuray nabi aadan karidii buha marka de bilaadanka bashariyada ilaahay suuraaladiisa ugu tala garay inay tarmaan joogan adduunka ilaa iyo yawmal qiyaamah marka aadan ciid baa laga abuuray dhooba laga abuuray wad garanaysan siirada iyo qisada nabi aadan aad baad uga dharagsantihiin laakiin waan yar sarayaay hadhow baad saafan doontaane waqtigaan ilaalinayaay waxa weeyaan aadan de dhoobadii laga abuuray wax kasto dhooba laga abuuray ama wax ciid ka soo baxay cuna oo dhulka ka soo baxay cuna shahwa ku jirta shucuur baa ku jirta waxbuu doonayaa waxaana waxa ugu cajiibsan waxa weeyaan waxa rag iyo dumarka ka dhaxeeya oo loogu tala galay inay bila aadan ku yimaadaan maaragtay xiriirka caynkaas ah marka aadan markuu taa u baahday aadan jacayl baa ku dhacay isagoo walba haysta waxbuu jeclaaday deetana markuu wax jeclaaday wuxuu jeclaaday inuu helo jinsigiisa oo wehel u noqoto oo la madadaalo oo waxa ku jira ee uu raadinayana u dhiibo oo marka ilaahayna wuxuu qoray baa ka socda bal ogaada hadaba qisadaas walaba oge aan idin sheegay waxa weeyaan jacaylka adduunyada ugu weyn aadan baa soo maray sayiduna aadan salawaatullaahi wa salaamu alayhi xaawon la abuurin buu jeclaaday uu qalbiga ka jeclaaday uu iska suuraystay uu ku fikiray de wuxuu yiri talow caynka u egtahay waxbuu ku fikiray marka waxbuu sawirtay qalbigiisa ku sawirtay maskaxdiisa ku sawirtay ka bacdi markuu seexan waayay ilaa jacayl baa haye ayaa habeenkii markii dambe isagoo soo toosay subaxdii buu midigta eegay markuu midigta eegay ayuu wuxuu arkay xaawo oo suuradii uu doonayay ah oo abuuran oo feedhiisa laga abuuray oo uu is ogeyn yatana agtiisa huruda oo quruxda la yaabo oo timaheeda huwan oo cajiiba markaas sidaa u eegay markaas wuxuu yiri oo maxaad ahayd markaas tiri xaawa la yiraahdaa waligaa magaca ma maqal magacana ilaahay baa u bixiyay malaa'igtaana u sheegtay malaa'igtii de feedha ka abuurtay xaawa la yiraahdaa oo xaawa maxay tahay buu waa maradaadii bay tiri aad huwanaysay markaas uu yiri keen ku waday kolkaas uu gacanta soo taagay malaa'ig baa soo degtay waxa aadan oo gacantaada joog nin edeb la yeelo oo gacantaada dib u celi markaa muxuu yiri xaawa la yiraahdo waa maradii waan huwanayay markaas ay yiri maya xaawa meher bay u baahan tahay nikah la iskama taaban karo ma la taaban karo halka maxaan idinka tusaaleynayaa gabadha Soomaaliyeed ama muslimka ah meel kasta joogta ama bilaadanka in sifa sharciya lagu taabto mooyaan in la taabto ma la taaban karo hooyada iyo walaalaha iyo inta shariicadu fasaxday laakiin gabadha maxramka ka ma taaban kartid ka bacdi aadan uu yaabay wuxuu yiri meherku muxuu yahay marka meherkii baa loo sheegay waxaana la yiri nabi maxamed oo aanu aqoon oo aanu maqal oo aad dali doonto oo salaadaada kamida oo aad boqol goor ku salido ayaa meherkeeda way fududahay baa la sheego waa loo sheegay nabi maxamed ku salli alayhi salaatu wasalaam waxaanu ku xusuusto ku ogolaaday ila nabi buu haaye markii nafta la galiyo istaagu arshiga sidaa u eegay ayaa maxaan ku iraahdaa la tusay arshiga oo ku qoran tahay la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah horta rasuulkeena waa kaas markaas uu waa kan arshiga ku arkay markaas boqolka ku saliyay markaas saasay xaawa ku xalaalowday marka hadda waxaan uga jeednaa
dadkeennan muslimka ama bini aadanka ee doonaya inay caruur helaan horta qof waliba caruur buu doonayaa mugta qof waliba caruur buu doonaya ee sababtii la yimaada sababtu waa maxay waa inuu gabadh u jeclaaday helo ama gabadhu wiil ay jeclaatay hesho oo qalbiga ka soo go'ay oo indhuhu aqbaleen oo sheekadu isku qabatay markuu taa helo iskama taaban karo waa sifa sharciya la mariyo marka waa in la helo waarid bixiya iyo markhaatiyaal iyo sheekh meheriya iyo meher gabadha ilaa xaawo meher baa loo sameeyay Soomaa marka jacaylka caynkaas ah dhacay wuxuu keenaa markaasi wiil iyo gabadh iskuursaday waxay keenaan markaasi quruxda iyo wujuhda qaaliga ee gabdhiha wiilasha ee caalamka ku fiirsan fatashiru fil ardi laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri qaar wiilal baan nusina qaarna gabdhaan nusina ayada quraanka xafladii horaan ka sheegay qaarna waaban isugu darnayo gabdhii nusina qaarna waxaan ka dhignaa kuwa aan waxba dhalin oo caqiima waa bixikma xikmatu rabbaaniya